dad qableh ama isla weyn وقويسك ugu halgan badan في التاريخ 12 qarni bay Soomaalidu dagaalamaysa 12 qarni weligood hal qarni ma dhamaan iyagu jihaadin في التاريخ ummadihi kale wadan islaahan jiray gaaladu qabsatay way isdiifaanba Soomaalidu waa qoys la kado ilaa mingan taagan way qoys la kado way sida Andalus loo qabsaday yaa loo qabsaday bariga Afrika oo dhan Soomaaliya loo qabsaday awoodda lagu bixiyay annagoo Afrikaan dagaalamayna Boortaqiis nagu soo guulay Axmed Gure mujaahidka caalimka ayaa dilay qarniga 10aad halgami jiray Boortaqiis baa dilay markuu Axmaar Samriyay oo hilibka cayriin baray oo maqalo ugu tagay oo aksum ka saaray oo u rabo inuu badda ku daro Faransiis baa soo duulay Soomaalidu waxay ahayn dad aad iyo aad u dagaal yahanina iyagoo isticmaalaya tabo lagu hoogo waxay qaadan jireen gaashaan ka samaysan haraga gariga oo waxay u dagaalami jireen laba iyagii oo ninba wato waramo wax tumaatiya oo af leh iyo bilaawe amba golxad oo inta midi kii kale ku soo maqan yahay ayaa isagiina midii ku taala الإمام قلقشنتي كتاب صبح الأعشى وقدر استدلال صومالي وكورمية وحول وتدك بني آدم كي يكون الجبل كا تدك عقل بدون يقول وأذكياء بقول ورمو كورمية وكورمية سيدي بقصون بدي كورمية تضرب بقول سنة كور بولي صومالي وضد جنسي كلا أو كعقل بدون بشر كلهم ولي متى إلى أمك سيدي متى مسماه dadka Soomaalidu fikrad ahaantay ayaa waxa uu yiri waxa weey dad aan si nabad loo agdhigi karin dadka degan qaybtani Afrikada ah hadii ay tahay maskax iyo geesinimada horta waxay hayeen dad raganimo leh indhahooda saafiga ah iyo fahmadooda degdega badan iyo eegmadooda ayaa waxa ay ka soo jeedeen nolol caafimaad badan oo aanay waxba shaashaynin sida waxyaabaha dadku qaataan ee tamarta lagu kiciyo muhiimaddu waxa weeye qoys weligood awood in loo sheegto min uma hoggaansamaan cadow uma hoggaansamaan wuxuu waa niman madnoo dhudhuubano sanqo dhudhuubano moodo inay carab ku jirto laakiin xagga dadnimada wuxuu laakiinahum ashidaa'ul ba'sa izzabu waxa ay Soomaalidu ka yimaadeen dhinaca waqooyiga ah buu yiri iyagoo duulaan ah markaasay kiciyeen oo ka wadeen dadkii iyaga dhulkaasi ugu horeeyay